13 Oktoobar 1977 maalin fasax ka soo noqosho iyo rakaab 86 qof ah. diyaaradda Lufthansa oo Jarmalka laga leeyahay waxay ka soo duushay garoonka Mallorca ee Spain, waxayna ku socotay kuna wajahneyd magaalada Frankfurt ee waddanka Jarmalka. 30 daqiiqo markay diyaaraddu hawada ku jirtay oo si caadi ah u socotay ayuu jawigu hal mar isbedelay. diyaaraddii waa la afduubay, waxaana afduubtay 4 qof oo Falastiiniyiin ah, waa 2 nin iyo 2 dumar ah. kani waa Sahil Yusuf Akasha, kuna magac dheer Maxamuud, waana kaabaha kooxda diyaaradda afduubatay. ujeedada iyo danta kooxda diyaaradda afduubatay ayaa waxay ahayd inay taageeraan maleeshiyada la dhaho ciidanka cascas oo Jarmal ah iyo in maleeshiyadaas madaxdooda laga soo daayo xabsiyada Jarmalka. diyaaradda oo ka soo baxaysay Spain kuna wajahneyd Jarmalka magaalada Frankfurt ayaa laga leexiyay wadadii oo waxaa loo leexiyay Talyaaniga iyo magaalada Roma. diyaaraddu waxay ka soo degatay magaalada Rome. qoladii wax afduubatay halkaas ayay dalabkoodii ku soo bandhigeen oo ahaa in ciidamada cascas ay Jarmalku xabsiyada ka soo daayaan. Jarmalka markaas wuxuu u kala qaybsanaa 2 wadan, bari iyo galbeed. dawladda Jarmalka galbeed ayaa waxay dawladda Talyaaniga ka codsatay in diyaaradda shaagageeda la toogto si diyaaradda loo banjariyo kadibna rakaabka loo badbaadiyo. laakiin Talyaaniga arrinkaas ma uu rabin, balse Talyaanigu diyaaradda shidaal ayuu ku shubay. waxay ku amreen in ay garoonkooda ka duusho kana tagto Rome. kadib diyaaraddu waxay u soo duushay Qubrus iyo magaalada dhaho Larnaca si ay halkaas shidaal uga qaadato. saacad markii ay fadhiday diyaaraddii ayaa halkaas waxaa la keenay nin ka mid ah ururka dib u xoreynta Falastiin, kaas oo isku dayay inuu afduubayaasha ka dhaadhiciyo in ay diyaaradda iyo rakaabka fasaxaan, laakiinse hadalkiisa way iska diideen. shidaal ayaa loogu shubay diyaaraddii, kadibna waxay ka soo kacday Qubrus. waxay soo aaday wadamada Carabta, balse waa laga diiday diyaaradda in ay ka soo degato Beirut, Dimashq iyo Kuwait. laakiin Bahrain ayay ka soo degatay, shidaal yar ayay ka qaadatay. kadibna Dubai waa laga diiday in ay ka soo degato, laakiin markii la ogaaday in diyaaradda wax shidaal ah ku jirin ayna sii socon karin ayaa loo ogolaaday in ay Dubai ka soo degato. wasiirka difaaca Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu ka codsaday afduubayaasha in ay sii daayaan dumarka iyo carruurta si diyaarad kale loo saaro, laakiinse afduubayaashii ayaa sheegay inaysan marnaba hal qof xataa aysan sii daynin. xaaladda aad ayay u xumayd, waqti badanna waa u socday. rakaabkiina way rajo dhigeen, aad ayayna uga baqayeen in ay dhintaan ama in xaaladda meel xun ay gaarto. afduubayaashii go'aankoodii ayay ku adkaysteen oo ahaa in aysan qofna sii daynaynin. sidoo kale afduubayaashu waxay dalbadeen shidaal iyo cunto iyo biyo iyo joornaalka maalintaas. dawladda Jarmalka galbeed iyo dawladda Imaaraadka Carabta wax kale oo wada ah markaasi ma aysan hor oolin oo aan ka ahayn in ay siiyaan dadkan waxa ay dalbanayeen. afduubayaasha ayaa sheegay in ay dadka dilayaan haddii codsigooda loo fulin waayo. kadib waxaa loo ogolaaday in shidaal loogu shubo diyaaradda, cuntona la siiyo, biyona la siiyo iyo waxa kale ay codsanayaan, laakiin diyaaradda ay ka wadaan kana kaxayaan Imaaraadka meeshay geynayaanba ha geeyaane. diyaaradda waxay ka soo cagaqaaday magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka, kadibna waxay soo aaday magaalada Cadan oo ahayd caasimadda Yamanta Koonfureed si ay halkaas shidaal uga qaadato. Yamanta Koonfureed ma aysan rabin in ay diyaaraddu ka soo degato waddankeeda, wayna diideen, mana aysan rabin in ay afduubayaashu hawshooda halkaas ku fushtaan. laakiinse maadaama aysan diyaaraddu shidaal wadan, markii dambe ayay ka ogolaadeen in diyaaraddu ay ka soo degato magaalada Cadan oo caasimad u ahayd Yamanta Koonfureed. markii ay diyaaraddu sidaas u soo degatayba, ciidamada Yamantu diyaar ayay ahaayeen oo waxay wada joogeen garoonka hareerihiisa. afduubayaashana waxay ogaadeen in aysan hawshooda halkan ku fushan karin oo aysan ku kala bedelan karin maxaabiista ay rabaan in loo soo daayo iyo rakaabka u afduuban. shidaalkoodii ayaa loogu shubay diyaaradda. kadib duuliyihii diyaaraddu hoos ayuu u soo degay si uu diyaaradda u fiirfiiriyo una indho-indheeyo. duuliyihii diyaaradda wuxuu isku dayay in uu la hadlo qolada maamusha garoonka Cadan si uu uga dhaadhacsiiyo, ayagoo iskaashanaya dawladda Yemen iyo dawladda Jarmalka galbeed in ay badbaadiyaan rakaabka meesha saaran, dadka wax afduubteen u fuliyaan waxa ay rabaan. laakiin Yamanta Koonfureed arrinkaas rajo xumo ayay ka muujisay iyo in aysan waxba ka qaban karin.
duuliyihiina asagoo niyad jabsan ayuu waxa uu ku soo laabtay diyaaradda. afduubayaashii diyaaradda oo ka shakiyey duuliyaha wakhtiga dheer ee uu maqnaa iyo inuu sir bixiyey iyo in kale ayaa arrinkii ka xanaaqay oo halkaas waxaa lagu dilay duuliyihii diyaaradda. kadibna diyaaraddii waxaa waday duuliyihii caawiyihiisa ahaa, wuxuuna usoo kaxeeyey magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya. 17 Oktoobar 1977 diyaaraddii waxay ka soo degatay eraboorka muqdisho oo hadda loo yaqaan eraboorka caalamiga ah ee aadan cadde, waxayna dalbadeen afduubayaashii in meesha uu uga horeeyo qof matala jarmalka galbeed. xilligaasi waxaa dalka ka talinayay allaha u naxariistee jenaraal maxamed siyaad barre. soomaaliya wakhtigaas waxay ahayd waddan aad u horumarsan, aadna u xoog badan oo aan marnaba la dhayalsan karin. dhanka kale magaalada Bonn oo ahayd caasimadda jarmalka galbeed, safaaradda ay Soomaaliya ku lahayd ayaa maalintaas waxaa ka socday howlo culus oo u dhaxeeya madaxda jarmalka galbeed iyo diblomaasiyiinta Soomaaliya u fadhiyay safaaraddaasi. jarmalka oo markaasi doonayay in ay howlgal ka fuliyaan airportka iyo dhulka Soomaaliya, markaasina ma aysan fududayn in fasax la'aan dhulka Soomaaliya uu howlgal ka fuliyo dal kale, maadaama ay Soomaaliya ay ahayd dawlad aad u adag aadna u culus. arrinka intaas kuma uusan ekaan ee dawladda jarmalka galbeed waxa ay soo gaartay magaalada muqdisho caasimadda Soomaaliya, waxaana markaasi la kulmay allaha u naxariistee madaxweynihii hore ee Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre. wadahadal saacado badan socday kadib, Siyaad Barre waxa uu u sheegay in uu ka soo horjeedo arrinkan ay argagixisadu ay sameynayso. sida daraaddeed waxa uu sheegay in ciidamada Soomaaliya ay diyaar u yihiin in ay arrinkan ka howlgalaan oo ay badbaadiyaan rakaabka diyaaradda saaran. laakiin dawladda jarmalka galbeed ayaa waxa ay sheegeen in arrinkan ciidamadooda khaaska ah loo daayo, maadaama diyaaradda la afduubtay ay tahay jarmal, rakaabka saaranna ay yihiin jarmal. waxayna u sheegeen in ay aad ugu mahadcelinayaan dawladda Soomaaliya, laakiin Siyaad Barre ayaa waxa uu u sheegay in aysan u baahnayn mahadcelin afka iyo mahadcelin ubax ah ee ay u baahan yihiin mahadcelin kaash ah. arrinkaas ayaa la isku waafaqay. nimankii diyaaradda afduubtay ayaa waxa ay dalbadeen kuna celceliyeen in loo soo daayo maxaabiistooda jarmalka ku xidhan loona keeno muqdisho, haddii kale ay diyaaradda qarxinayaan. dawladdii jarmalka galbeed arrinkii way waafaqday, laakiinse jarmalka galbeed waxa ay hoos ka soo direen ciidamadoodii oo kaalmo ka helaya ciidamada Soomaaliya, waxayna si dhuumasho ah u soo hoos galeen diyaaraddii qaab aysan dareemi karin dadka diyaaradda afduubtay. si gaadmo ah ayaa hal mar waxaa dariishada looga toogtay afduubayaashii diyaaradda, kadibna meeshaas waxaa ku bilowday dagaalkii u dhaxeeyay ciidamada khaaska ah ee jarmalka oo kaalmo ka helaya ciidamada Soomaaliya iyo afduubayaashii diyaaradda. halkaasina waxaa lagu dilay kaabihii kooxda diyaaradda soo afduubatay iyo 2 kale, waxaana lagu qabtay gabar kooxdii wax afduubatay ka mid ahayd, waxaana la soo badbaadiyay rakaabkii diyaaradda saarnaa oo jarmal ah. waxaana mahadcelin badan loo soo jeediyey dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed. dhacdadan ayaa waxay tahay taariikh culus oo aan marnaba la hilmaami karin, waxaana laga sameeyey filimaan badan iyo filimaan documentary ah oo taariikhi ah. rakaabkii diyaaradda saarnaa ayaa isla markaas waxaa loo soo celiyey magaalada Bonn ee caasimadda